السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركن وقراء الله يسير سكت قراء أكثر شعب الصوماليات كاسو عاو مرتين يومي هاي محمود حسن شديدة وكم على القواعد واجد القواعد وعاو وبرهاد قراء الله يسير سكت الصومالي وياقي دولا تاريخ دي الصومالية أي صومتين لا وقت يقبلسي كور وقت يقبلسي إنجليزي الطليانية سو كانت وقت دولا الصومالية الشيخ حريتك الجاعة بعدي سو كانوا تاريخها الصومالي وياقي دولا كل سجال بقول iyo sagaashankii burburkii dawladii Soomaaliya taa Soomaaliya ka dhacay isbedel loo ceeyay maanta Soomaaliya halkee bay maraysaa sida loo aasasay Soomaaliland iyo guud ahaan taariikhda Soomaaliya maanta meesha ay aka dhigatay dadka waxa qaadi doona website-ka booliiska leeyahay golaha 1960.com sidoo kale waxa qaadi doona all friend website-ka la yiraahdo waxa qaadi doona Facebook-ga waxa qaadi doona YouTube-ka hadii la yiraahdo magaciisa waa dhagood soo dhawo mutaqawaacid بلاد واحد شعره مرت أبوها خيسة تذكر الصومال يقول عن 1960 كان دقيقة إنجنير قواعد وإنجنير ميكانيكال إنجنير أو كبح حيث أنا عبد أمد الصومالية كسر شغيين وشدي مريري كسر شغي وسارة كل الدول كان عشان صار لقوي هذا نقول تلك أستراليا صورنا كلا يرى هذا بودلاند كسر بيعشنا مقال الله صورين لو أساسا مقع بودلاند تبلو بيسولو لي وأقويالكي أنا قول دقودة يسقى يا عبد الرحمن بلاتي أنا وذا قريشيان لكن أنا ولا قبل ما قبل الأسطورة كون بلوي وتاريخيا الصوماليات أو سود سوق التاريخ أعد فرقان سود هو متقواعد حال عاو الصومالي وحيسة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم دقود واكو سلامي دمان صومالي كوتشر تابعي مغريس أو كوتشر كلها كوتشر أنا وسلامنتهين سلامك بعدي هذا كسر دواده وحوي أنيقو لما تشير بان وحنك هذلي كنا واقي سوماليلاند أو كوبي سجاشن كيو أنقب شوكا ها مرة حلقة شوكا لما بس أنا هذا بان بسيلة يا ديرات مرة واحد هاي last week أسبوع ولا صار في حد يدي وحل سود داي بانو ملان يا أربعة دي ما راح سلقة سود داي يقول ده الشرباء ورئيستي waxaan ka warramay wixii aan goobjooga ka ahaa oo waxaan uga warramay si objective oo aan caadifadiyo ahayn macnihii waxaan anigu aaminsanahay laakiin dacdooyinka meesha ka jira ayuu baan ka hadlay hadeer diyaar uma ayna dib ugu noqdo detailskii oo waxa weeye de details badan oo waxa laga social media laga helaya waxaan u maleeyaa codka dambe aan duubay ee zoom-ka ahaa waxaan qiyaasayaa dad ilaa 50,000 meelahaas inay arkeen hadda views-ka marka waxaan see ku soo conclude gareynaya ama ku soo koobaya ujeedka macnihii ay ku fadhiday waxa meesha ka soo baxay wuxuu ahaa ujeedku wuxuu ahaa qorshahaasi wuxuu ku yimi doonis qayb ka mid ah bulshada gobolada waqooyi ama hal beel qoliyaha iyaga kalena kama warqabin markii ay miiska soo dhigeen qaabkii miiska loo soo dhigay qaab naqanciyey ma ahayn oo macnihii lagu heshiin karo oo qaab xoogaa dhinac ka raran oo qorqabasho abuu ahaa runtii markaynu ka hadalno si caadifadiina way iskaga jirtay conclusionka aakhirkana wuxuu ku soo dhamaaday iyadoon wax badan laga tashan waayo fikirkii la isla haysanin ayuunbaa si degdega uu isaga soo baxay 18 May markii uu dhawaaqu soo baxayna intii ka dambeysay halkii lagaba sii ambaqaadin oo macnihii bal wixii de inta xaliil lagu sameeyo oo la isla soxo oo la isku badeyn muddo hadda 30 sanadood baa laga joogaa waqtigaas ilmihii waaga dhashay waa 7 jir ilmihii 10 jirka ahana waa 40 jir burbur guud baana Soomaalida ku dhacay burburkaasi wuxuu keenay qolo waliba inay deegaankeedii tagtay inay taariikh ay leedahay samaysato wax badan baa marka qaldamay runtii oo fikrada kala duwan baa umadu haysata waxaan marka su'aal la isweydiiyay hadii jeer oo la isweydiiyaa war waxaan sidee ku yimaadeen sidee horta wuxuu dhacay marka baltaa inaan baan rabay dib ugu noqdo wax yar si kooban korka xaadis soo dul maro war xagaynu ka dhimay markii hore taa haddaan marka ku yar noqdo waxa weeye muddo hadda baan qiyaasaya laga joogo 135 sanadood baa sequence of events kana ama dhacdooyinkan istabad jooga oo shape gareeyay waxaan hadda jira bay soo bilaabmeen waa qarnigii 18aad gadaashiisa dhamaadkiisa ama bartamihiisiiba ka soo bilow
markii u horeysay inagu dad Soomaaliya baynu ahayn dhulka Soomaaliya degan magaca Soomaaliya ma jirin runtii dad Soomaaliya baynu ahayn oo beela ah oo qaabka beelaha u samaysan dhulka waxa la oran jiray baan qiyaasaya bari Soomaal dhulka badda ka gudubsanna waxa la oran jiray bari Carab وانا halkay ka timi kelmadda la yiraahdo Somaliland markii dambe oo British Somaliland French Somaliland Italian Somaliland halkay ka yimaadeen xilligaas aynu dhulka degenayn dawlad Soomaaliyeed iyo nidaam Soomaaliyeed oo camimay oo dadka ka dhaxeeya ma uusan jirin dad iska reer guuraa u badan oo nolol simple ku nool oo simple nomadic society baynu ahayn taariikhda Soomaaliduna dhinac marka laga eego waxa la yiraahdaa kubayaal sanadood ilaa faraacinadii iyo waxaasiiba ku sinay marka anthropology-ga iyo waxa la yiraahdo waxa la fiiriyo laakiin qoraaladaas oo aynu hadda reference oo qaadano inagu maynu lahayn oo maynu keenin waayo inaga taariikhdeena oral history bay ahayd taariikhdeena oral history-ga qabaliga ahina waxaan u maleeyaa 1000 sanadood ba inay gaarsiisanayn 700 800 bay maximum joogtaa maxay ahayd toy waxa kaliya oo group ah inaynu waqti dheer soo jiray oo mudada ka badan soo jiray waxa weeye afkan aynu ku hadalno oo af aad u qiimo badan oo tiro badan oo afafka adduunka lagu qiimeeyo kuwa ugu sareeyo ku jira marka kullayba oral history-gaasi wax badan baa luma waayo marka de wuxuu aanu qorayn waxa weeye wuu luma oral history-gan wuxuu ku salaysan yahay odayaal yimi reer hebel saasay ahaayeen adigu taariikh badan baynu leeyahay caynkaasa oo aan saxnayn يعني qaabkan qabaliga inuu qaybsanahay qaab saxan ma aha oo wax badan oo qaladaad ba ku jira oo hadda laba qof oo baa laga yaabaa isku reer sheegtaa inay markay aftirsadaan isku siba ay u baalkeen sheekooyinka kale oo Soomaalida oo maxay ahayd toy habkaas macnaheedu tribal society-ga ah waxaan kaloo ku arkay waxa ku jira waxyaaba buugaa kale iyo dhaqamo kale iyo ku qoran iyo diimo iyo ku jira midalan Bible-ka Masiixiyada iyo wax la yiraahdo iska Hinduuga iyo sheekooyin ku jira iyo taariikhda Islaamka iyo oo la isku dabaqay oo dadka lagu dabaqay baa jira oo marka lagu oranayo reer hirsaas ay ahayn hebel baa hebel saal ku ahaayo adigu ala kulli xasaas ay ahayd markaan ka soo durko waxa weeye inagoo sidaas oo beelahaas oo dhulkuna bari Soomaali yahay dadkuna dabadna xere reer hebel xere bajeerteen xere warsagali xere harti xere isaaq xere waxa inkaas u samaysan oo xerooyin macni dhulka deegaanka ah ba waxa inoo yimin niman Yurub laga keenay oo qaab basaasiin oo horta inay dirsay sidii ninkii Richard Burton iyo nin Cornelius Spike la oran jiray iyo niman badan oo niman Talyaani iyo niman baa dhulka dhex maray oo sii dirsay 1884 markii la soo gaaray ayaa reer Yurub waxay nagu qaybsadeen sidii Africa oo Scramble for Africa waxa la nagu qaybsaday meesha la yiraahdo Berlin oo Germany adigu shirkaasi waxa lagu yiri wuxuu socday 1884 ilaa 85 Scramble for Africa Ethiopia ka qayb gashay shan qaybood baa Soomaalida loo qeybiyay shanta qaybood Faransiis iyo Ingiriis iyo Talyaani iyo Xabashi baa qaybsaday qaybta koonfurta ah oo dhulkan hadda Jubbaland la yiraahdo oo wixii webiga Jubba koonfur ka xiga iyo qaybta hadda weli Kenya ka tirsan oo NFD la yiraahdo Ingiriiska qaatay oo waxa lagu daray wax la yiraahdo British East Africa wixii halka webiga Jubba ka soo sareeya ilaa geeska Ras Calula ilaa Boosaaso adigu deegaankaasna waxay noqotay ha Talyaani wixii daw iyo Boosaaso bari waqooyi ka soo xiga galbeed ilaa Low iyo Caddo waxay noqotay Ingiriis Djibouti dee waa ugeedo Faransiis baa qaatay runtiina waqtigaas xuduuda calaamadsan ma jirin waxay ku qaybsadeen qaab qabaliya beelaha markaan soo qaado Talyaanigu wuxuu treaties la galay 1880skii afar qaybood oo koonfurta ka tirsan dhulkii uu Talyaanigu qabsaday oo Baargaal boqortooyo ka jirtay Hobyo mid kale oo ka jirtay oo la yiraahdo Hiraab Imaamiyad oo ka jiray halka soonaha Banaadir ku dhow iyo Jowhar iyo area iyo Galadi Sultanate oo soonaha marka iyo ahayd kuwaas uu dhiirisa la galay qolyo la dagaalameyna waa jireen oo maraakiib iyo lagu laayay qolyahan biyamaalka la yiraahdo oo taariikhdooda si fiican loo qorin laakiin dagaalkii Daraawiishta oo kala galay Ingiriisku shan qaybood oo waqooyiga ah uu la galay treaties laba qaybood wuxuu kula galay Saylac meesha la yiraahdo 1884kii labana wuxuu kula galay Berbera walana wuxuu kula galay meesha la yiraahdo Cadan shantaasi waa 1884kii ilaa bilowgii 85kii laas qorayna
1886kii buu treaty kuwii hore ka duwan buu la galay heshiiska macnihii xuduud calaamadtani ma aysan jirin xeebaha iyo meelahaas u soo galay dadka qabaa'ilka hinterlandka jira oo deegaanada ka durugsan jireen ama koonfur ha noqdeen ama waqooyi ha noqdeen ismay arag gaalada waqtiga halkaa markaan ka soo gudbo waxa weeye dhammaadkii qarnigii 18aad waxa la yiraahdaa waxay bilaabatay 1897 ayaa waxa bilaabantay dagaalkii daraawiishta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo Ingiriiska la galay wuxuu socday muddo 25 sanadood ah oo ilaa 21kii markii la jibiyo diyaaradaha lagu garaacay oo carareen uu galay xagga galay dagaalkaasi markuu bilowday dagaalkaasi gobolada waqooyi laga bilaabo Togdheer Tanaag dhulkan Sool hadda la yiraahdo Nugaal ilaa Bari ilaa waqooyiga mudug dhulkaas oo dhan uu ku fidsanaa Ingiriisku lama dagaalamaynin waxa Talyaanigu la dagaalamayay muddadaas shacabka dhulka deganay ama beelaha dhulka deganay saddex bay noqdeen waxa weeye qaybi waxay hoos tageen Ingiriiska oo Ingiriiska la socdeen oo ama askar ha u noqdeen ama maxbiyad ha u noqdeen oo hala joogeen qaybina waxay noqotay daraawiish bay noqotay dadkii uu sayidku dagaal galiyay oo la dagaalamayay oo jaadka ku jiray bay ahaayeen qayb saddexaad baa jirto Ingiriisna heshiis la ahayn Talyaanina heshiis la ahayn maxay ahayd toy sayidka laftiisana heshiis la ahayn colaadi ka dhaxaysay saddexdaas adigu bay kala noqdeen markaan ka soo gudbo waa soo koobkoobay daraawiishtu markay jabtay oo 22kii markaas horta xukunkii reer Yurub lagu fidiyay dhulka oo inay dhulka si fiican u qabsadaan oo dhulka oogada tagaan iyo Interlandka oo saldhiga ka samaystaan oo districtga samaystaan oo halkaas ay ka soo bilaabatay wixii 1920skii late 1920skii bay soo bilaabatay waxa kaloo late 1920ska dhacay mid 1925kii dhulka la yiraahdo Jubaland hadda ayaa Ingiriiska iyo Talyaaniga waxay ku heshiiyeen in Talyaaniga lagu soo wareejiyo qaybtaas hadda waa qaybta Kenya mararka qaarkood u doodo markaasay xukunka Talyaaniga ku soo noqotay wixii adigu late 1920skii waxaan u 1928kii markii la soo gaaray ilaa early 30skii ayay inay calaamadsadaan xuduudaha la bilaabay oo British Somaliland iyo Italian Somaliland hadda magacyada British Somaliland Italian Somaliland French Somaliland marar ka dambe samaysmeen intii hore treaties-ka oo qabaa'ilka kula jira oo protectorate-ka way soo socotay dagaalkii labaad baa bilowday 1939kii dagaalkii labaad markii lagu jiray waa fashisadii Talyaaniga oo Mussolini xukumayay iyo Jarmalka iyo Japan iyo israacsanaa qolada kale Allies iyo Axis iyo tay jireen Talyaanigu waa soo duulay markii hore Ethiopia u qabsaday 1936kii ka bacdi 1940gii waxaan u maleeyaa bishii August meelahaas ay bishii 7 ayuu wuxuu qabsaday gobolada waqooyi oo Ingiriisku haystay Talyaanigu qabsaday muddo 6 bilood buu haystay kadibna Ingiriiskii baa soo rogaal celiyay oo dib buu wuxuu qabsaday bacal koonfur 1941kii xagga koonfurta markaa military rule Ingiriis baa ka jiray xilliga Ingiriisku haystay koonfur iyo waqooyiba ayaa SYL urkii la oran jiray iyo bilaadmeen nimankii madaxda ah saraakiisha ahaa oo hadda Soomaalida ilaa Siyaad Barre iyo Soomaalida soo xukumay iyo generaalada ahaa iyo Allahu naxariisto maxamed caanash iyo nimankaas waa askartii Ingiriisku qortay bay ahaayeen askarta Talyaani ma ahayn runtii markii la soo gaaray 1949kii ayaa waxa la galay wixii la oran jiray ololihii trusteeship in la gaarsiiyo xorriyad Soomaaliya oo UN-ka laga soo dhameeyay ka bacdina Ingiriisku wuxuu isku dayay markaa inuu dhulka oo dhan isagu gacanta ku wada hayo hal mar xorriyad in wada siiyo laakiin qoladii koonfurta ayaa diiday oo SYL iyo groupkiiba xoogaa waxa jeclaysan Talyaaniga sababtaas Talyaaniga trusteeshipka dib loogu celiyay iyadoo UN-ku ka mas'uul yahay 1950gii ayaa dib Talyaaniga loogu gacan geliyay magacan Soomaaliyana markaas la sameeyay markii hore British Somaliland baynu markaa isku wada ahayn markii horreysana Italian Somaliland iyo British Somaliland iyo waxa aynu ahayn waa soo gudubtay 1954 ayaa calanka Soomaalida calanka buluugga ah waxa la geeyay adigu waqtiyadaas qoladii SYL soo hidin la yarada cawaale oo reeb gudubga ah baa lagu yiri adigu design-ka keenay oo fikirkaas la isla qaatay
cabdullaahi ciise maxamuud ninkii la oran jiray oo markii dambe dawladdii ku-meel gaadhka ugu horreysay soomaaliya prime ministerka ka ahaa baa wuxuu geeyey united nation qaramada midoobay 12 October 1954 ayaa la soo abrufgareeyay calankaas in Soomaalidu leedahay 1956 bishii February dhamaadkeedii baan jeclay inay ahayd ayaa dawladdii ku-meel gaadhka ahayd oo prime ministerka ka ahaa cabdullaahi ciise aadan cabdulla cismaan aadan caddana ahaa ra'iisul baarlamaanka ka ahaa oo xukun gaarsiinta ayaa laga asaasay oo fur calanka Soomaaliga ayaa calanka Talyaaniga laga dhinac taagay 4 sanadood baa calanka Soomaalidu wuxuu ka taagnaa official governo wuxuu ka dhinac taagnaa dhinaca calanka Talyaaniga ilaa 1 July la soo gaaro kii Talyaaniga la rogay muddadaas waxa soo baxay Ingiriisku waxa jiray watayda Mareykanka iyo xulfa ahaayeen culays baa la saaray inuu dalalka xoreeyo dalal badan buu markaa u qorsheeyay oo Afrika badiba uu haystay inuu xoreeyo British Somaliland buu ku soo daray waa tuu yeeray cigaal iyo ay tageen oo uu yiri wax xorriyad baan siinaya markii uu xaggana xorriyadda ka ballan qaaday xiriir baa jiray markaa Soomaalidu way wada xiriireysay xamar baa la isugu tagayay waxa la birbalaanid bay ahayd in Soomaalidu midowdo oo calanka wada qaadato sidii bayna ku timi 26 June sababtaas calanka Hargeysa looga taagay kadibna 1 July kii Talyaaniga laga rogay walba already kaasi xaq waa ka taagnaa sidii baynu dawlad ku noqonay okay dawladda markaynu noqonay labadii waxa la yiraahdaa act of union baa la saxeexay dadku laba fikir bay ka haystaan oo macnaheedu de waxa la yidhi dacwad qofba siduu jecel yahay qaybna waxay tiraahdaa laba dawladood baynu ahayn oo act of union saas oo aqaan waxay leeyihiin de labadii baarlamaanka 30% baa la soo qorsheeyay waqooyiga la siiyo watii 3 ku tagtay oo act of union wuxuu ku salaysnaa oo dhismaha dawladda laakiin de laba calan lama taagina calankaas markii horena xamar ka taagna markii dambe Hargeysa la keenay baa inaga dhaxay national emblemku isku mid buu ahaa constitution kala gaar ah ma jirin oo markii la sameeyay dawladda la dhisay ayaa dib inay kabacdi baa waxa laga dooday constitution la qaadanayo nima wadaadii waxay soo jeediyeen shariicada islaamka la qaato qolana waxay soo jeedisay adigu markii waxa la isku raacayo baarlamaanku uu codeeyay in lagu saleeyo kii Talyaaniga halka markaynu soo soconno inta ka horreysay oo 1940 laga soo bilaabo iyo gobonnimo doonka waxa weeye qabyaaladu way yaraatay oo dadku boor nationalistic bay noqdeen laakiin markii aynu dawladnimada helay kor bay ka soo bilaabatay anigu dadkii waqtiga garaadsaday baan ahaa maxay ahayd toy markii dambe iskuulada galay ma hadii la leeyahay yaati de waan xijireen wax laga noqday ahayd markii doorashadii ugu horreysay baan xusuustaa 1954 anigu koreya baa ergaabo xisbiya ka jiray la oran jiray SD iyo calan casta iyo SYL iyo xilliga wali xisbiyadaas dadka ku jira oo ma xubnahoodu dad isku jira bay ahaayeen oo qabaa'il kala duwan ah oo ma ahayn macnaheedu reer ma ahayn laakiin doorashadii 1968 oo tood khasaare loo jiro markii dambe military kuugii uu bahalkii kacaankii ka dhashay waxaan joogay Hargeysa 17 xisbi baa ka jiray anigu December 5 baan hadee young teenager baan ahaa 17 xisbi 17 reer bay ahaayeen magaalada markii loo banaan baxayo dhulka ayaa reer hebel baan boqol banaan bixi jirto markaas horta bahashi qabyaaladii baa dib loogu celi tii aynu ka nimi waa taanaan leeyahay 135 sanadood ka hor 1884 hadda marka la joogo waa 135 years ka gool intan dambe aynu hadda 30 sanadood adigu xilligaas baa dib loogu noqday qabalkii kabacdi sida iyadoo arrintu u socoto waa tii madaxweynihii la dilay dabadna inqilaab baa dhacay inqilaab military waxaan kale oo ku daraya halkaas waxa weeye dawladda la dhisay Soomaalida ama civilianka ahaa ama tii military-ga ahayd Soomaalidu way wadaagtay oo macnaheedu waqooyi koonfur kaliya ma ahayn waxa weeye reer NFD baa ku jiray Soomaali galbeed ama Ogaadeniya ku jiray reer Djibouti baa ku jiray qofka Soomaaliga ahi kama duwanayn kuwan labadan gobol ee dawladnimada qaatay kuwa ka baxsani lagama sheegan jirin wax umada ka dhaxeeya buu ahaa runtii markii dambe ka caan ku dhashay saasay ahayd
kacaanku markuu dhashay ama dowladda militariga ahayd xilligaas 1969 it was the norm waayo dowladaha Afrika oo dhan baa waxa ku dhacay waxa lagu impose gareeyay xukunkii isticmaalka oo reer Yurub oo iyagu refined u ahaa kumayaal sano ku soo qaateen ba waxaanay lahayn sidoo noo kale inagoo iska qabaa'il baa dusha la inaga saaray hadhowna tartaradu baynu dib uga tiibanay dabeedna dadkii waa niyad jabeen waa tibu Soomaaliya iyo cawaro iyo waxa la oran jiray meelo badan oo Afrika ah marka militarigu inqilaabay aad baa loo soo dhaweyn jiray marka dadku way ku faraxsanaayeen runtii markii horena bilowgii si fiican bay u hawl galeen oo waxbay hagaajiyeen oo waxbay dhisteen oo horumar bay sameeyeen laakiin muddo yar ka bacdi iyagii baa horta isku bilaabay oo tay inqilaabiyo iyo isku internal isku kaceen tii ragga qaar la joogtay qaar la xilxiray adigu waa soo socotay laakiin wali dhismaha iyo horumarka iyo waa socday oo xagga dhaqaalaha iyo koba iyo aqoonta iyo wax badan baa macni runtii xilliga kacaan ku jiray waliba first year qabsoomay horumar badan baa umadu samaysay markii la soo gaaray 1975kii waa markii la sameeyay waxaan la yoosinaanta iyo ragga iyo dumarka malaha waad baqasheen oo dabeedna qolada wadaadii ka hor yimaadeen nimankii baa la laayay horta markaas dareen dadka galay shaki waxa kale oo jiray waxay ballan qaadeen qolada waxa loo jiray golaha sare tawradda waa bilowgii abarda baa kacaanka loo bixiyo magac la bedelay iyo Supreme Revolutionary Council ballan qaadiyadooda waxa kamid ahaa inay dib intay wax u saxaan xisaab la sameeyo dabeedna 76kii bay wax sameeyeen xisbiga kacaanka Soomaaliya xisbiga hindooda kacaanka Soomaaliya horta markaas dadkii siyaasiyiinta ahaa oo dirajada qabay inay siyaasadda ku soo noqdaan markaasay qoosteen laakiin dadka shacabka ah shida weyn kuma hayninoo way iska fiicnayd nolosha xilliga marka runta laga hadlo qabyaaladuna waa yarayd oo batii la aasay ka bacdi waa soo socotay 77 baa soo gaaray dagaalkii baynu galay Ethiopia la galay dagaalka markii hore dadkoo dhan waa rabeen wadiyada lagu hayay waa guulaysan guula badan u gaadhay ilaa hawaas baynu ku dhawaanay ka bacdina waa tii ruushkii iyo qolyihii markii hore xaggeena xagga ka soo jeesteen dagaalkii markaynu jabnay baa waxa bilaabmay blaming game away haddaynu guulaysan lahayn oo dhulka haysan lahayn waxaan qiyaasayaa anigu markaan u weeymaa kuleedii Chelsea baan galay barigaas oo dugsiga saraanu ka baxnay aad baa loogu niyad fiicnaa laakiin haddii aynu guulaysan lahayn oo ay inoo suurtagelay inaynu dhulka qabsano waxa weeye cid waliba waxay oran lahayd oo in lagu identify gareeyo oo la yiraahdo hebel baa ku jiray laakiin markii jabkii yimi blaming game baa bilaabmay oo maxamed siyaad dusha laga saaray waxaanu ka tashan waxaanu wixii eedii oo dhan horta isaga dusha loo saaray waxay gaadhay kuwii aynu u dagaalamayno kadalka Soomaali galbeed inay misalan gabayadoodii iyo markaad aragtid wadamaana qaadkii dibbatay dawladda afweynay ugaadiyay deeminkan iyo darsada hawsha iyo markay soo baxday iyo takarta maroodiga laga soo tufleeyay in la yiraahdo qoladii inta dhowr iyo 20 kun oo nin baa Soomaali kaga dhintay inay baleem gareeyaan oo yiraahdaan macnaheedu annagana la xasuuqayo lagu baabiinay waxa jabka keena wax kale ma aha waxa weeye waa la niyad jabay nimankii saraakiisha ahaa oo dagaalka soo galay laftoodii baa niyad jabay dabeedna inqilaab la isku dayay inqilaabkii wad maqasheen caro iyo ninkii la oran jiray ragii lagu laayay iyo Cabdullaahi Yuusufna waa ku jiray marka xogaa uu ka degdegay adigu inqilaabkii waa socon waayay nimankii waa la qabqabtay waa tii la laayay 18 nin qoladii kalena waa tay carareen Cabdullaahi iyo baxsadeen inqilaabka ragga sameeyay waxay ku sawirayeen inkastoo isku jireen dhinac bay beel bay u badnaayeen oo wixii markiiba wuxuu u sawirmay inay qolo ahaayeen beeshaasina siyaasadii hore oo aan civilian ka ahayd bay dominant ka ahaayeen ka bacdi waxa la sawiray inay iyagu wax gaar doonayaan ka bacdina waa kay samaysmay ururkii SDF markii hore loo jiray markii dambe SDF baa la sameeyay SDF golihiisii u horeeyay la sameeyay dad mixira bay ahaayeen oo qabaa'ilka Soomaalida ka kooban laakiin through time waxay isaga biyo shubteen qayb reer bay noqdeen saasay reer ku noqdeen urur reer leeyahay dawladda la dagaalamaya 79kii baa la asaasay baa jeclahay 81kii baa waxa ku xigay SNM from the beginning markii waxay ku identify garowday reer anigu waxaan xasuustaa jaamacadda Gaar baan dhiganayo galab baanu BBC-da ka dhageysanay galabtii warshada lagu dhawaaqay dabeedna laba nin baa magacyadooda la sheegay inay wadaadiin iyo nin la oran jiray duqsi ka bacdi markii warkii dhamaaday baa
nin naga mid ahaa dhalinyaradii naga mid ahaa baa gartay magaalada yiri waa laba nin oo hebel la wareeray bartiiba mucaarad iyo maayis lagu noqday isagiina ururkaasina saasuu ku noqday reer kuwii ka dambeeyey adigu 88kii waatay dagaalka uu dhacay oo waqooyiga dagaalku ka bilaabmay qoladan kale lafteedu mudday ka dagaalamayeen gobolada dhexe SSDF dhibaatooyin badan baa dhacay xadgudubyo badan baa la sheegaa oo ku dhacay dee iyaguna dib u ageysanayeen qolada kalena waatay waqooyiga soo galeen hadda anigu I was there ilaa mid 1984kii baa la bedelay Hargeysaan ka shaqeynayay xilligii gaani joogay waxyaabo badan oo dhici jiray baa jiray marka hadda ma rabo dee inay details badan waa wax u baahan in iyada lafteeda xaqaa'iqeeda laga hadlo waxa weeye xadgudubyo badan baa jiray oo xadgudubyo dagaal xadgudubyadaasina waxay dhinac qura kuma koobneen dhinacyo badan bay u socdeen ilaa markii dambe dagaalkii ay soo galeen oo Burco iyo Hargeysa soo galeen markaana wixii dhacay waan ogeyn iyo sidii wuxuu dhaceen iyo musalsalkaas 87kii baa iyana qoladii kale USC la asaasay oo iyana beesha kale ahayd 87kii 89kiina SBM baa iyana la asaasay oo ninka asaasay markii dagaalka qolada Hargeysa ku soo qaatay kaliya xigeenkii qaybtu ahaa oo ninkii la dagaalanayay buu ah qolada tan adigu waa soo socotay waxay soo socotay dibadna waa dintay aakhirkii finalkii 1991kii markii aynu dunay wixii de wajiga qabaliga ay ku salaysnaayeen mabda kale iyo principle kale iyo waxba ma jirin dabadeedna afar ay fariiq baa dhacday bartii isticmaalku inuu yimid dib ugu noqonay reer oo waliba inagoo hub iyo haysano iyo siyaasadii reer Yurub nagu milantay oo sidii baynu noqonay waa soo socotay soddonkaas sanadoodna waynaga ka caqufayna haddeerna weli nidaamka tribalka abaad mudba ayuunbaa dominant ka ah oo kii hore oo aynu ka soo bilownay ah مثلا تبع waxay eedeeyaan 4.5 iyo waxyaabaha iyo waxa weey in a sense waxa weey xal kale waxa leeyahay geeyo dabadeed ka digay xal kale waay marka horta dhacdooyinka musalsalka ah ee soo dhacay burburka keenay intaasay saasay ahaayeen wixii kale details ama waray ama macalihi faala ah ama su'aalaad waa ka jawaabaya intaasaan horta ku joojinaya waana salaamantii ولا محمود واحد سأل لها بالحد إلى سيرة كوبان أذل مرفو استجي مغادة برعو إلى بربراء أساس كسمال لان الدكتور كابد يعطان جويل قولي عن هاي وده كل بدل بوها لا سيرة أذل كوبان لذلك على كمل هذا كابد كقيد جاي كورن كاسي برعو لما أنت ماشي مريس على كل نوع هاي ما أنت ميك صوب بالعمل طيب لا ما وأنت على بدينا سيرة يقوم راح تقول لك إيش على تكون كرتال إنه وقت كل بدرها إن الشيء السوداء اللي هو دول من الله بقول إيش ماشي اللي هو جاري هيك فهذا يرسل بمقاس على وحوي واسوق هو بيا وأي مركز هران دي قفكي وباهني مالها سوشيال ميديا هي كتيران ديتيلز بدن بحيي هذا وحلاقي أنا ضدك قارد بصدين ديتيلز كه عوي أنا wax badan waliba waa ka tagtay laakiin wixii aan ogaaban marka sheegay laakiin Soomaalida waxaan ka raali gelinayaa hadii cid dhibsatay ama offended ku noqotay horta raali aad baan leeyahay waayo waxaan ra'yi ma ahayn practically wixii aan markaa arkayay oo meesha ka jiray bay ahayd haddaan soo koobo waxa weeye markii dalku burburay oo siyaad bare xamar ka baxay oo ururka qolo waliba deegaankeedii soo gasho SNM ay qabsadeen Hargeysa iyo Burco iyo Berbera iyo Laacir gaabo adigu wax isku fidiyay deegaanka beeshii ay ka soo jeedeen bay ku fideen USC wati ilaa xamar qabsatay waxay ahayd waliba halka waxyaabaha ka dhacay macalihi qaloocan baa ka dhacay oo qaab macalihi qabaliya dagaal qabaliya baa laga bilaabay qolyihii kale oo mesela deegaanada kale ahaayo bari iyo nugaal iyo dhulkan iyo qolo waliba beesheedii bay joogeen markii ay soo galeen SNM soo galeen oo hubkii dawladda iyo wixii beeshii yaalena gacanta ku hayeen ay gacanta ku dhigeen dad badan oo hubeysan oo dagaalansan oo banaanka yimina waa ahaayeen sidaan maalintii hore sheegnayna waxaanu iska egsbadgareynayni macnaheedu inay isma lahayn sheekadan goonigoosiga iyo waxaan yidhi kama fikirayn waayo horena uma hadal hayn jirin laakiin hal qodob fiican bay sameeyeen oo maalintii horena sheegay oo ku amaanan yihiin kaasoo ahaa
waxa weeye halkii ay iyagu reer hebel laaya iyo waayo dagaal markii hore SNM lafteeda iyo dawladda siyaad barre ay ka dhex abuureen qabaa'ilka waqooyiga baa jiray oo muddada 89 laga soo bilaabo ama 88 ba ilaa 91 waxa weeye beelahan bisal harti waqooyi la yiraahdo iyo Samaroon iyo meesha isaaq weyslaynaya dagaal baa jiray marka berbera markay yimaadeen bay taar soo direen oo waxay yiraahdeen isu keenkeena waftiyaa naga tagay waa loo tagay waxay soo jeediyeen in la nabdo sidii ba marka xabad joojin la sameeyo ka bacdina shir la isugu yimaado waa bishii February 91 kadibna dhamaadkii April bay haddana yiraahdeen shirkii Burco lagu ballamay aan isugu nimaadno anigu marka waftigaas aan raacay adigu markaanu meeshii tagnay baanu ka war helnay inay fikirkaas doon isu taagaaman Somaliland dawlad gaar noqoto ay wadaan markii dambena waa noo soo jeediyeen oo miiska noo soo saareen markay miiska soo saareen qaabkay miiska soo saareen qorqabasho ahayd qaab macnaheedu wada tashi iyo ma ahayn waliba waanu ka hadalno war waxaan suurta gali maayo baan nidi oo taa dhacday oo 30 sanadood hadda ay aqoonsi ay waxba aan helin inay sidaa noqonayso baan soo jeedinay waxaanu kale soo jeedinay inaynu hargeysa xarunta Soomaaliya noqoto aynu kuwa kale u yeedno oo halkan aanu isugu nimaadno adigu wixii waa naga diideen oo qaab caadi fadaysan buu waxaan u yimi anaguna macni awoodaan isku hortaagno ma lahayn iyaguna waxda fikirka oo madaxda SNM oo kale iyo sidaan ka shaqeeyay way ku kala qaybsanaayeen laakiin waxa weeye jamhuurka ayaa waxaan doonayay oo si caadi fadaysan u raadinayay markii golaha dhexe loo gudbiyana golaha dhexe waxay taraan gareeyeen bal horta inay arrinta delaying tactics bay ku bilaabeen inay waxaan dib u dhigaan oo muddo sii jiitansiiyaan oo qoliyo ay xamar u direen oo qolada USC iyo la soo hadlaysiyo in wax ka soo baxa ka bacdi nin baa maalin hadlay saan sheegay 2 casho ka hor 18 May baa nin hadlay oo xamar ka hadlay nin Cismaan Jaab Cali la yiraahdo oo dawladii siyaad barana wasiiriyo ka antiga Soomaaliya la yiraahdo marka dabadna cad kacdoon baa yimi waxay noqotay madaxdii SNM oo Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo in qasab la yiraahdo qasab waa inay ku dhawaaqda marka horaan u sheegay waxa weeye 18 May wuxuu ahaa qorqabasho ahaa markii lagu dhawaaqay kadib shirkii iyo wada hadalkii wixii bartiiba ku joogsaday waliba bay suga yimaadeen midaan anigu sii joognay adigu ilaa bishii June lixdeedii meelahaas aanu sii joognay macnihii ka wada hadal dambe iyo waxan iyo sidee nidaam u dhisnaa iyo sidee waxba la hada isku badiyay caadi fadhiin baa dintay annagana dhulkayga waan ku noqonay horta wuxuu saas u dhacay muddadii ka dambeysayna oo muddada dheerna waxa weeye beeshii fikirkan qabtay oo beesha dhexe la yiraahdo la baxday ama markaan runta sheego beesha isaaq waxa weeye way jiraan dad qaybo kamid ah oo Soomaaliyada aaminsan oo rag baa jiray ilaa waqtiga Muqdisho qaar dhintay iyo qaar nool laakiin majority-gu markaan eego beel ahaan ay fikirka u aaminsan yihiin beelaha kale oo waqooyiga ay wada degaan oo mesela beesha hartiga la yiraahdo dhulbaanti iyo warsangeli iyo gayle iyo beelaha harti waqooyi la yiraahdo iyo beesha Samaroon beesha Ciise inta badan kama bahadlaan oo waxay ku xidhan yihiin dhinaca Djibouti iskaga xidhan yihiin ma filaya marka horena SNM waa kula jireen oo dagaalkay la galeen waayadii dambe oo hada golaha dhexe kula jireen sidaan sheegay laakiin beesha Samaroon iyo beelaha harti waxa weeye up to now 99% of their population ma aaminsan Soomaaliya qoladan kalena qolada isaaqna iskuma dayaan marna iskuma diin inay macnihii qaab consensus wala oo wada hadala in wax lagu qaab aad moodaysaa mesela hadda la saanood oo kale Soomaaliland baa waxay ka talinaysay ilaa 2007 baan u maleynayaa niman baa geeyay runtii reer la saanooda laakiin dadku qabaa'ilka waxa symbol u ah isimada dhulbaahante laba nin baa waliba siyaaratiga ugu sareeya oo markay ismada sida siyaarati loo galay Garaad Jaamac Garaad Cali iyo Garaad Saleebaan ma joogaan ismadooda hal isim baa ka jooga ka isimkaasina oo dhinaca waqooyiga la saanooda qolada deegaanka ka ah isimkaasina marar badan buu ka hadlay oo khilaaf dhexdooda ah oo uu macnihii saluugay qaabkay u wajahayeen ayaa ku khasbay markii dambe inuu dhinaca iska raaco laakiin dhowr iyo 10 isim bay leeyihiin ismadii waa ka maqan yihiin laysma weydiiyo lagama wada hadlo xagga iyaga waa la mid dhinaca warsangeliga marka waxa weeye isku dayma dhicin wixiina mujtamaciina wuxuu dib ugu noqday heerka aan ka soo sheekeeyay oo 140 sanadood ka hor ah
marka haddaan xaqiiqada laga wada hadii xaqiiqada lagu wada noolaan waxa weeye de ma soconayso mashkiladda kaba jirta waxa weeye madaxda joogta koonfur ama fil Soomaaliya kuwa ku jira hadda ha ahaadeen ama kuwa mucaaradka sheegta oo yiraahda ururka mucaaradka oo kale iyo ba misalan iyagoo masaalax shakhsiya iyo codad ay ka helaan xubnaha baarlamaanka iyo waxyaabaha iyagoo ka fikiraya waxay uga hadlaan bariyahan dambe oo yana soo korodhay macni markay ku hadlayaan topiga waxa Soomaaliland macni dadku isuma raacsan hal beel baa waxa ka wadata markay xaqiiqada ka hadallo macni marka beeshan hadday anigu macni dawladda hadlayna waxaan idhi waxa weeye wax muqaddas la yiraahdaa ma jiro nothing called sacred kitaabka quraanka aba Soomaaliyan muqaddas ahayn markay xaqiiqada ka hadallo Soomaaliland baan ahayn wax muqaddas ama waxa jira waxa weeye waxa bini aadamku heshiis ku yahay waxaynan heshiis ku ahayn de wax ma jiro marka identification kana Ingiriis baan xukumayay waxa ka sokaysa Ingiriis ka hor baynu beelahan ahayno xiriir hayni macnaheedu beesha isaaqo kale oo majority-goodu aaminsan yahay inay Somaliland dal gaar ah noqoto waxa weeye dhul ku filan bay haystaan deegaan ku filan bay haystaan dekada berbera wada qaada saaqo dhan ba qadi Soomaali oo dhan bay qaad 10 million people ba ku noolaan kara adduunka meelaha berbera oo kale waxa weeye inta effort ku luminayaan cid kale ku sharciyeeya bariga xuduud Ingiriis iyo Talyaani xuduud samaysteen inay effort ka galiyaan anaguna waa ku taageeri lahayd hadday rabin iyagu macnaheedu rabin inay part of Soomaaliya noqdaan waxa weeye waa ku taageeraynaa war samaysta dawladda idin gaar annagana hana khasbina ilma riyaal oo abtiyaal hana khasbina baanu marar badan waa ka wada hadlo de waa kaftana dadku way siiyay laakiin difference ku halkaas ku jira taadis farqiga meesha ku jira ka weeye annagu ma rabno inaanu annagu kuwan iyagu u arkaan foreignerka ama dal kale baanu de kuwan aan isku bahalkiinahay maxay ay toy annaga bariga naga jira wixiina waxa weeye de dhaqan Soomaaliga baa sida waxa weeye jaranjaradii ay noo dhiibeen wixii lagu imbuskareeyay iyo systemkii gaaladu noo dhigtay kanimi halkii baynu ku noqonay waar taako isku warwan baynu joognaa waaba dhameeyay halka ereyga ka noqonaya aragti ahaan dad badan baa jiro aaminsan in muxuu ahaayay Somaliland ay tahay muxuu ahaayay dad Soomaaliyeed isu tigo qabaaya asaaskana had iyo jeer marka ay ka waramayaan dadka u dhashay gobolada waqooyi qaarkood waxay sheegaan in dadku ay isu wada raacsanayaan maamul ahaan guddiga ka tirsan adigu boqolkiiba in maamulkiisa ka watay faaqan waadu aad bay u sheegtaa in dadku isu raacsan waadu waxay aad u sheegtaa in dadku isu raacsanaayeen shirka iyo wax aragtida maadada tahay ay bedeshaa dadka isu raacsan maamulkiini qabaa'il aska qayb gasharidku ma ku raacsanaydeen in Soomaaliland la goosato dowladda la dhisataa mise waa aragti madama si kiin bedeshay extra ma ku raacsanayd markii hore ila la goosataan anagu wafti kooban baanu ahayno dhow xagga misalan meeshaanu ka nidhow 20 baanu ahay waxaan 22 waxaan kaasta baanu ahayn qolada bahata wafud kooban baanu ahayn كمان أنا نور قبل سيدنا رورا وشيء بعديه شيء كذا أنا قوني سوتاعك توتالي نوجو يشيلين أجندها وايو كمان نوجين كمان صوت الشن اللي هدان نوجان لهاي نوسو شيء لهاين بانو ده مركا كتشن لهاين سيدا يجو كصوت الشن يجو عن روش يجين إني هرجيسك صوشيرين وكصوت الشدين لكن أنا كمان صوت الشن من نوجين ما بيتنا أمان هاي سنتي وضبط كي يجي دك كمان نوكي لهاي وحكن كبعدنا وحنو نيرشوشيه نجد هيا بانو ما قرأ هو ما عندك راح حقيقته ساس وين لكن هبك أي هذا إلى إمك الله وضع أما قرض ما مت هرجيسك هذا كان سؤال اللي هنقطه وحوي إن وحصد عص إنه صير أقص عضو وحنا حقيقته ما أحده ما عنده راح سنين هدي عضل قاضو ما أنت هدي عضل قاضو إيش كده براني يبراسي وأنا شوقي بيه لا سعنات هدي ما أنت عضل قاضو وحوي 99% مرة بان قوسي ما جرى هذا حد يعضنا قاعدو آخر كانوا وحي تجيسا وحوي دتك وإن لو عدنا لما تشوفوا بكرو عدنا لما خص بكرو إيانا لما خص بكرو هذا ينصوم على ثمن لو ما خص بكرو غير برعي غير كيسيو أما باش أصل أنت خص بكرتها ما تشوف أيضا أنتوا كونفور كي يبادو كسو الدولة يو دوشة كقب سنة يا ما تشرو
iyaguna xaq nooguma laho nama khasbi karaan waxa weeye finalkana waa ay waxay imanaysaa waa in cid walba la weydiiyaa waxay rabto waana taa aan leeyahay dee waxaan muqaddaskan leeyahay muqaddas baynu ku waalanay wax muqaddas leeyahay ma jiraani intii isku fikira oo israaci karto meel istaagi karta annagu misalan reer ahaan markaanu beesha warsangeli aan ka soo qaado waxa weeye 1886kii 27kii January baanu heshiis annagoo boqortooyo abaanu boqortooyada Ingiriiska la galay way qoran tahay recordkii ku jirtaa hadda waad heli kartaan waxa weeye heshiiskan uu la galay ma ahayn maxmiyade annagoo laba dawladood camal baanu galay ka bacdina annaga Ingiriisku waa naga baxay heshiiskii waxa la galay cawl garaad cawl ninka la oran jiray Maxamed Ali Shire awoogiisu ah ninka la galay dadku halkaas way qaldan